xabadaasi la joojiyo in wada hadal iyo miiska la isugu yimaado in aynaan ku sii soconin dad maalin walba inaga dhintaa oo aan noo soo noqonayn oo intii naga dhimatay maanta ay yihiin un dad Soomaaliland ka maqan oo dadkeeniya oo aynaan ka maarmin qadar la uu ka adeegay oo dalka dhinaciisa galbeed ah oo muddaba soo socday colaadda gobolada Awdal iyo Salel oo in muddo soo jiitaysay imika muddo sanad iyo dheeraada oo aad muddo maalinta ka dambaysa in colaadaasi ay sii baahayso shalay iyo maanta oo qura marka la qiimeeyo gaarisa ilaa iyo Lughaya in colaadaasi gaadho shalay ta dhimasho iyo dhaawacba uu jiro maantana uu jiro awalan halkan waxaan ka dirayaa baaq nabadeed oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo aadamnimada uu ifarayo xilka dhaqan ee aan hayaana uu ifarayo mid kale oo noo gaara guud ahaan qowmiyadda Subeer oo la magaceedii milgiheedii maamuskeedii baan ku hadlayna waan ka damqanaya waana ka tiiraayaysanaya ummadaasi waxaanu nahay dal iyo dhasheed dad oo wadaaga baanu nahay labada beeloodba colaadda halka ka dhacda iyo reeqxumadaasi iyo sii socodkeedu aad iyo aad baa runtii aan uga tiiraayaysanayno afka qowmiyadda beesha Subeer oo ku hadlaya waa ka tacsiyadeynana intii ku dhimatay inta dhaawacantayna Ilaahay inuu boogadheeno Ilaahay uga baryayaa waxa maanta halkan baaqan aan uga dirayaa labada beelood waxgaradkooda bahda dhaqanka oo labada ugaas ay ugu horeeyaan madaxda kale ee dhaqanka ee salaadiinta iyo boqorada iyo ugaasyada iyo gandahaba leh waxaan leeyahay warcaanada tiibada badood la qabay waxyaabo fara badan oo hore hadii ay soo dhaceen maanta dhiiga ummadeena isku daadanaya in sida ugu dhaqsaha badan aynu wax uga qabanno in xabadaasi la joojiyo in wada hadal iyo miiska la isugu yimaado in aynaan ku sii soconin dad maalin walba inaga dhintaa oo aan noo soo noqonayn oo intii naga dhimatay maanta ay yihiin un dad Soomaaliland ka maqan oo dadkeeniya oo aynaan ka maarmin qadar la uu ka adeegay waxaan leeyahay war colaadaasi sidii aynu u joojin lahayn oo baaqaygana ugu horeeyo madaxda dhaqanka labada ugaas ay ugu horeeyaan iyo inta gudaha ku jirta ee kala gedisan ee aqoonyahan leh ee culimada diin leh ee ganacsatada leh ee siyaasiyiin leh dhammaanteedba in laga shaqeeyo colaadda sidii loo joojin lahaa baaqa nabadeed ee maanta halkan aan ka dirayaa ka weeye number 1 weeye kelmadda labaad ee raacda waxa weeye xukuumadda talada dalka haysa oo aad moodo intii xilka dalkan iyo dadkan loo dhaariyay colaadda galbeedku inay sii huraysa sidii loo agaasimi lahaa ee arrimaha xalkooda sidii loo gali lahaana mar qura aan dariiqeedii marin kuna taagnayn bal mararka qaarkood iyo meedoodii ay sababtay in colaadaasi heer ka gaadho ama hadalla xanaf laho maanta ragga mas'uuliyiinta qaarkood dhaqanka taabanaya ragga mas'uuliyiinta qaarkood ka soo baxaya taana waxa leeyahay cid kasta oo dhibsatay waxaanu ka bixinaynaa taana xaal iyo apologize baanu ka bixinaynaa cid kasta oo hadal aan munaasib ahayn lagu yiri markaan intaasi ka soo gudbo xukuumadda oo madaxweyne Cabdiraxmaan Garwadeenka ka yahay baan si gaar ah maanta halkan uga hadlayaa waxa leeyahay mudane madaxweyne colaad kasta sida loo wajahayo cid waliba xaaja qaad iyo xilkas iyo xubno muhiim u ah oo looga maarmay nabadda xiritaankeeda ayay ummad waliba leedahay arrintaasi marar badan oo hore ayaa la weydiiyay oo aan dariiqeedii la marin waxaan maanta kuugu baaqayaa mudane madaxweyne in colaadda cid kasta oo xaaja qaada oo xilkasa oo nabaddaasi ay ku xidhan tahay in la raadiyo laga daba tago halkeeda loogu tago lagu qanciyay inay nabadda inagala qayb qaataan si dabkaasi inooga baqtiyo hadallada aan munaasibka ahayn ee mas'uuliyiin fara badan ay soo celcelinayaan in laga waantoobo